nabadgelyada naxariista eebbe iyo barakooyinkiisu ha idiin ahaadeen. kuna soo dhowaada waraysi aan la yeeshay Cubayde Maxamed Saalax oo isagu gacantiisa ku qoray kitaabka Qur'aanka Kariimka kuna guuleystay tartamo badan oo uu ka qayb galay. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa sheegay in dadka uu ugu khayr badan yahay qofka barta Qur'aanka ee haddana dadka bara. haddaba bal qiyaas qiimaha iyo darajada uu Alle agtiisa ku yeelan doono qofka bartay Qur'aanka ee haddana gacantiisa ku qoray iyadoo malaayiin qof ay ka sii faa'iideysan doonaan. kitaabka Qur'aanka Kariimka ayaa qarniyo badan la soo qorayay, waxaana jira kutubo waqtiyo hore la qoray kuwaasi oo yaala ama laga heli karo goobaha taariikhiga ah ee dalalka Islaamka. haddaba waa kuma Cubayde Maxamed Saalax. عبيدة محمد صالح البنكي من مواليد سوريا مدينة دير الزور مواليد 1964. magacaygu waa Cubayde Maxamed Saalax. waxaan ku dhashay magaalada Deir ez-Zor ee dalka Suuriya sanadii 1964. waxa aan ku dhex dhashay bulsho aqoon leh. aabahay waxa uu haystay maktabad, waxaana yaalay kutubo ay qoreen qoraayaal waaweyn. wuxuu igu beermay jacaylka qoritaanku yaraantaydii. waalidkay way igu dhiirigeliyeen, waxaana ku dayan jiray qoraagii weynaa ee Haashim al-Baqdaadi. qoraanimadu waxay rabtaa in la geliyo dadaal badan. anigu waxaan dhigtay cilmiga beeraha, balse qoraanimadu waa hamigayga. waxaan galay tartamo waaweyn oo aan ka xusi karo mid lagu qabtay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, kuwaasi oo aan guula ka gaadhay. qoritaanka kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ee dalka Qatar wuxuu ahaa tartan ay qabatay wasaaradda awqaafta iyo diinta ee dalka Qatar, waxaana ka qayb galay 120 qoraa oo ka kala yimid daafaha dunida. waxay ahayd dhowr wareeg. wareegga koowaad, qoraa kasta waxaa laga dalbaday inuu qoro 2 bog, waxaana ka soo baxay 7 qoraa, iyadoo markaasi laga dalbaday in mid kasta uu qoro 2 juz. kadibna waxaa ka soo baxay 2 qoraa, waxaana laga dalbaday inay qoraan kitaabka Qur'aanka Kariimka oo dhammaystiran. wuxuu Alle qadaray inay guushii raacdo. فالحمد لله تم استجابة الدعاء وأيضا عن طريق مسابقة. أنا كنت أريد كتابة قرآن مصحف المهم كتابة. الله سبحانه وتعالى استجاب في مسابقة دولية وتم طباعته ملايين المرات هذا المصحف، وهذا فضل ونعمة من الله. waxay ii ahayd riyo aan Alle ka baryi jiray inaan qoro kitaabka Qur'aanka Kariimka. Alle mahadii way ii rumowday oo ducadii Alle waa ajiibay. waa dareen aan la soo koobi karin kitaabkii aad gacantaada ku qortay oo ay dadku akhrisanayaan, weliba marka lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. يعني هذا أعظم شعور وأجمل شعور عندما أجد أحد يتلو كتاب الله خصوصا في شهر رمضان المبارك. waxay igu qaadatay inaan qoro kitaabka Qur'aanka Kariimka oo dhammaystiran muddo 3 sano iyo badh ah, taasi oo ahayd shaqo joogto ah. waxaana lagu qoraa qalin iyo khad, iyadoo aad muujinaysid deganaan iyo sugnaansho, isla markaana aad u hubinaysid xaraf iyo xaraf. daabacaddii koowaad ee aan qoray waxaa hubiyey oo akhriyey 300 oo xaafidul Qur'aan ah. waxaa sidoo kale intaasi dheeraa 2 guddi oo qaabilsanaa farsamada qoraalka iyo cilmi ahaan. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixin kooban oo aan ku eegaynay sooyaalka qoraa Cubayde Maxamed Saalax. waxaan halkan idinka soo jeedinayay anigoo Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiisha, wuxuuna halkaasi ugu dambeyntii igu guddoonsiiyey kitaabka Qur'aanka Kariimka. waxayna ii ahayd hadiyad midda ugu qiimaha badan ee aan guddoomo.